kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada janalka galka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo shaaca ka qaaday in dadka haysta baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliya ay fiisooyinka ka qaadan karaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo qaadacay golaha wasiirada ee magacaaban iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere oo soo dhaweeyay golaha wasiirada ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. akhbaraadka dhinaca dibadda ee warka galka wararka aan idinku haynana waxaa ka mid ah senatarada Mareykanka oo ansixiyay in ay xubin ka noqdaan dalalka Sweden iyo Finland ururka NATO. aan ku bilownay dowladda dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in dadka haysta baasaboorka diblomaasiga Soomaaliya ay fiisooyinka ka qaadan karaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi. wargelin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in diyaaradaha rakaabka in qof kasta oo haysta diblomaasiga Soomaaliya gaar ahaan diblomaasiyiinta senatarada iyo waliba mas'uuliyiinta kale ay fiisaha ka qaadan doonaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya. qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay qayb ka ahayd heshiiskii bishii July ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa si wadajir ah u qaadacay golaha wasiirada cusub ee dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. wasaxaafadeed ay si wadajir ah ay u soo saareen ayay labada madaxweyne ku-xigeen waxa ay ku sheegeen in kulan gaar ah ay ku yeesheen aaladda fogaan aragga ayna ka tashadeen caayaha beesha ay ka soo jeedaan ee degta deegaanada Jubbaland iyo waliba Galmudug, Itoobiya iyo gobolka Banaadir. waxayna sheegeen in xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre lagu xadgudbay awood qaybsiga beelaha daarood isla markaana ay qaateen go'aan. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenada ayaa waxa ay ku baaqeen in la isugu yimaado shir ay uga tashanayaan caqabadaha horyaala iyo quursiga ay sheegeen in lagu sameeyay beeshooda. ugu dambeyn shirkan ayaa waxa ay ku casuumeen labada gole ee baarlamaanka iyo xukuumadda labada dowlad goboleed iyo waliba odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beeshooda isla markaana si degdeg ah ay ugu magacaaban doonaan guddi isku dhaf ah oo ka soo shaqeeya xilliga uu dhacayo shirka iyo halka lagu qabanayo. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheerana waxa uu soo dhaweeyay xukuumadda cusub ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa sheegay in si buuxda ay u taageersan yihiin xukuumadda cusub isagoo ugu baaqay in golaha shacabka in ay ansixiyaan golaha wasiirada cusub. waxa sidoo kale uu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan golaha wasiirada ra'iisul wasaare Xamse uu u baahan yahay in horey loo sii socdo. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere oo la hadlayay idaacadda VOA waxa uu sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan inay isbedel dhab ah ay la timaado xukuumadda Soomaaliya isla markaana ay noqoto mid dalka ka saarta xaaladaha uu ku jiro. wararka ka soo baxaya madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa ku soo aadaya xilli uu madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ay qaadaceen xukuumadda cusub sidoo kalena madaxda dowlad goboleedyada ay ka aamusan yihiin arrinta golaha wasiirada. aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa u codeeyay ansixinta qaraar ogolaanaya in dalalka Finland iyo Sweden inay xubno ay ka noqdaan gaashaanbuurta NATO. waa tallaabo lagu sifeeyay mid taariikhi ah oo loogu xoojinayo difaaca xuduudaha iyadoo uu taagan yahay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. NATO ayaa si rasmi ah u ogolaatay Sweden iyo Finland in ay ku biiraan isbahaysiga dhammaadka bishii June. go'aanka waa inay aqbalaan dhammaan baarlamaanada 30 dowladood ee xubnaha ka ah isbahaysiga NATO si rasmi ahna loo ansixiyo ayaa lagu yiri qaraar ay soo saareen aqalka sanadka ee dalka Mareykanka. daawadayaal intaas ayuu ku egyahay warka aad kala socoteen janalka galka wararka. inta aan ku kulmayno warkan oo kala waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay janalka subscribe noo dheh si share garee si uu dad badan u gaaro muuqaalka aad ka daawanayso janalka galka wararka.